بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal ku soo dhawaado qiso aad u macaan oo ku dayasho mudan. Qisadani waxa ay ku saabsan tahay nin faqiir ah iyo xaaskiisa. Waxa ay lahayd xaaskiisa timo dhaadheer oo qurux badan oo leh midabka dahabiga, qof walbana ka heli jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ka jabay biinkii ay timaha ku qabsan jirtay. Waxa ayna isku dayday in ay samayso biinka, laakiin waa u suurtageli weyday oo waa ay samayn weyday. Kadib ninkeedii ayay weydiisay in uu u soo iibiyo biin cusub oo ay timaha ku qabsato, laakiin wax lacag ah ma uusan helin. Ninkeedii waxa uuna ku yiri, gacaliso, ma hayo wax lacag ah, xitaa saacadeydii oo jaban ayaa u waayay wax aan ku samaysto. Markii ay jawaabtiisii maqashay waa ay iska aamustay oo wax kelmad ah ma aysan oran. Intaasi kadib ayaa ninkii shaqadiisii iska aaday. Isaga oo shaqadiisa u sii socda ayaa waxa uu arkay dukaan lagu farsameeyo saacadaha laguna iibiyo saacado celis ah. Ninkii ayaa isla markiiba ku fakaray in uu saacadiisii iibiyo, lacagta uu ka helana xaaskiisa ugu iibiyo biinka timaha lagu xirto, uuna kadis uga dhigo xaaskiisa si uu u farxad geliyo. Isagoo aan ka labalabeyn go'aankiisa ayuu iibiyay saacadii, waxa uuna lacagtii ku gaday biinka timaha lagu qabsado. Waxa uuna hubay in xaaskiisu ay ka heli doonto biinkaas. Ninkii maalintii oo dhan waxaa ka muuqatay xamaasad. Markii uu shaqadii dhameeyayna waxa uu si toos ah u aaday gurigiisii. Markii uu gurigii tagay oo albaabka iska furay ayuu waxa uu arkay xaaskiisa oo timihii dhaadheeraa iska soo jartay. Waa uuna yaabay, waxa uuna weydiiyey waxa timaheeda ku dhacay. Iyana waxa ay u sheegtay in markii uu baxay ay aaday rugta timaha lagu qurxiyo oo ay tinteedii quruxda badneed iibisay si ay isagu ugu soo iibiso saacad. Isna waxa uu tusay biinkii uu u soo iibiyey iyo waxa uuna ugu sheekeeyay sidii uu ku soo helay. Jacaylka iyo xanaanada marnaba laguma iibsan karo lacag. Labaduba iyaga oo ilmeynaya ayay hab isa siiyeen, waana jacaylka dhabta ah waxa maalka adduunyo ka dhigay wax aan qiimo lahayn. Lamaanahani ayaa waxaan ka baran karnaa cashir aad u qiimo badan.